wuxuu la yaabay Langton Walsh arinta uu la yaabay ku sheegay xaaska Suldaan Nuur Axmed Amaadin wuxuu qoray af Carabi ayuu u qoray kan Ingiriiska Caraba lagu macaamilaa af Carabi lagu macaamilaa Suldaanku uu qoraya xaaskii wiilka hayaa yiri inaan wada hadal galnaan rabnaa oo nabad aan amaan galino oo meesha aad joogto aan meesha aan joogo buuq aad joojiso af Carabi u qoray af Carabigi ayay tiri intuu u wacay subaxi ayuu yiri odagaagiyan rabaa warqad inaan u qoro warqadaanaan u qoray haddaan u dirayaa wuxuu yiri haddaan la soco ayadu uu inform gareynay warku siinay markuu saas u sheegay tarbal tus warqada u qortay warqada markuu tusay grammarka saxda uu cajabay madaxu gacanta saaray kii Ingiriiska Carabigii uu qoray bay ka saxday oo Soomaali ah oo af Carabi xilligaas yaqaanay ismaha gurigani waa cajiib si cajiib u eegay ilaa haddana uu taagay gurigani loox inta badan loox baan u badiyay bal wax ka dhan Ingiriis guriga hadda qiimayso dhismaha banaanka architecture-ka waa Turki Arab Hindi wax la soo keenay gudaha daa soo gashay British waa jiifka iyo fadhiga iyo musqulaha iyo meelaha laga baxayo waxa yaab ah gurigan hadda afar albaab laga baxaya mujada afar albaab oo kala duwan qolkaas uu jiifan jiray asaga albaab laga baxo leeyahay haddii loogu soo galo albaabkan waa laga baxaya marka heshiis baa waxa la isku raacsan yahay oo loo aqoonsan yahay Hunter inuu ahaa ninka British Somaliland ba u ah aabaheed dhismaha ninka dhisay asaasayba loo aqoonsan yahay albaaris laga qoray maaldood oo mid gaal qoray waxa la isku qadda la qoray sanadka hore waxa la isku raacnay laakiin dhowr 10 sano ka hor aqrin jirnay Hunter wixii British Library ka aqrin jirnay iyo Colonial Archive weligii waa arkay daytada Hunter marka Somaliland ba bilowdo inaad taariikhda daristo dhinaca colonial qofka ugu horreeya ku soo booda FM Hunter waa taariikhdu dadkay bartaa waad mari taariikhdu dadkay bartaa dunida waahidi taariikhdu dadkay bartaa waxay dugaad mari barnaamijkana dhibcaha taariikhda waxaanu ku sugannahay Berbera halkani waa guriga DC-gii ugu horreeyay ee James Hunter ee 1884 oo halkani uu ku degay bishii August oo uu soo galay Somaliland Ingiriis maxaad ka xusataa Hunter ka hor gurigan horta waxa dhisay Albaasha oo ahaa amiirkii guud Turkidu u soo magacawday geeyga Soomaalida inuu xukumo xaruntiisana halkan ay Berbera min Saylac ka soo bilaw ilaa iyo Gordofoy ilaa iyo koonfurta dalka ayaa Turkidu maamulaysa 1875 ilaa 1984 January ay halkan ka daad goreysteen marka kadib markii dhibaato badan ay dhacday dhinacii Mahdigii Suudaan kadib waxa halkan yimid oo FM Hunter oo ahaa sarkaalka dawladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaalida say ku magacaabeen fadhigiisuna yahay cadan odayaashii habar awal habar jeclo habar Yoonis ayuu heshiis la galay kadib Samaroon kadib Warsangeli ayaa lagu sii balaariyay lagu sii dardaray FM Hunter la galay heshiisyadaas waxay dhigayeen cid ay la geli karaan heshiis oo quwadaha isku haya marinka Red Sea iyo Indian Ocean inaysan jirin oo Ingiriiska kaliya lala macaamilayo heshiiskaas ayaa dhacay qaarna dib loo cusboonaysiiyay bilihii January ilaa iyo April meelaha la heshiinay ilaa June ay soo gaartay kadib shakil laga Ingiriisku uu ka qabo in Faransiiska oo Djibouti fariistay isku soo balaariyay dhulkan ayaa keentay Agosto bishii 8 ayaan ka wadaa 1884 in FM Hunter uu habeenimada ku soo duulay dekada Berbera uu qabsado guriga ugu horreeyay deegaanka markaa kan beesha oo uu sii habeeyay gurigan FM Hunter soo fariistay asagana waxa bedelay nin oran jiray Langton Walsh oo qoray book uu kaga waramayo Hunter asaga waxaan ka haynaa book oo cadan ka qoray oo Soomaalida cadan ku noolay sida loo noolaa Berbera xiriirka lahayn uu qoray laakiin halkan intuu xukumayo book ma qorin kii ka dambeeya book qoray oo Hunter xukunkiisana ka sheekeynaya asagana iska sheekeynaya dadku ula macaamilana ka sheekeynaya nin shaarib weyn oo ahaa oo aad iyo aadna xogaa cunsur ah Soomaalida isla markiiba iska hor yimaadeen kan dambe FM Hunter waa nin muddo dheer Soomaali la macaamilayay oo cadan kula macaamilayo macaamil dheer leh Soomaali inaan xog lagu wax looga qaadin og oo xogaa dajiya dekadii waxa waa qabsaday laakiin awood kuma dayin laakiin Langton Walsh wuxuu bilaabay inuu isla markiiba la diriro dadka Soomaalida oo daba xoog inuu ku qabto ninka ugu horreeyay la dagaalamo marka wuxuu ahaa oo Ingiriiska halkan kula dagaalamo dagaal kala hor yimaado Soomaali Sayid Maxamed Horti Suldaan Nuur Axmed Amaan waa suldaanka habar Yoonis Suldaan Nuur Axmed Amaan Langton Walsh is dagaalan bogiisana ku qoran suldaanka diiday
berbere halkan lama soo dhaafi karo yiri banaankeena soo fariis asoo fardo iyo fardoolay iyo waran layaal wata ee ciidan wata ingiriiska halqala halkan ka dhacay markab uu dalbaday Langton Walsh waa magaalada waardiye dekada ganacsiga dhaqaalaha iyo halkan hilibka laga qaada cadan lagu geenay askarta ingiriiska waxay sheegaan ingiriisku danta ugu weyn ee kala hayaan qabsadii berbere inay ahayd hilibka inay ka qaataan laakiin dan security strategiga ayna meesha u fadhiyeen waa qarnaayeen marka suldaanka halkan soo fariista waa diiday ka baxo yiri meesha ka tago ha suldaanka marka duulaana lagu qaaday wuxuu Langton Walsh sameeyay dhaqan xun oo gumaysigii xumaantiisa ah oo aynu soo afduubay xaaska suldaan Nuur Axmed Amaan ayuu afduubay oo soo afduubay gar adag ayadoo ka soo baxday gar adag oo u socota dekad kirid oo rajul halkaas maadaama halkan ingiriis ka mamnuucay suldaanka iyo dadkiisa dhan lama mamnuucay ayaa xaasku waxay damcadade dharay iibsadaan ma waxay iibsadaan timir adeegii soo doonatay kirid ayadoo joogta ayaa mid u shaqaynayay Langton Walsh oo Soomaali ah wuxuu yiri xaaskayga iyo xaaska suldaanka isla socda dekadaas ay joogaan Langton Walsh habeen madow halkan inta ka duulay oo rartay ayuu xaaskii wiil yar ay dhasho soo afduubay gurigaana lagu soo xiray uu sheegay boogga ku qortay gurigaana ku xirnayn hal bil iyo xogaa u xirnayn halkan ha ujeedada aan kala inaan soo afduubay waxay tuyir to come to terms inuu aqbalo saacan wax rabo suldaankana de hal bil wax diidanaa ergu u direeyay midkan ingiriiska ah marka dambe ay is aqbaleen wuxuu la yaabay Langton Walsh arinta uu la yaabay ku sheegay xaaska suldaan Nuur Axmed Amaadin wuxuu qoray af Carabi ayuu u qoray kan ingiriiska ah caraba lagu macaamilaa af Carabi lagu macaamilaa suldaanku uu qoraya xaaskii wiilka ayaa yiri inaan wada hadal galnaan rabnaa oo nabad aan amaan gelino oo meesha aad joogto aan meesheeda aan joogo booq aad joojiso af Carabi u qoray af Carabigi ayay tiri intuu u wacay subaxii ayuu yiri odagaagiyaan rabaa warqad inaan u qoro warqadaanaan u qoray haddaan u dirayaa wuxuu yiri haddaan la soco iyadoo uu inform garinay warkuu siinay markuu saas u sheegay itrabal intuu warqadaa u qortay warqada markuu tusay grammarka saxda uu cajabay madaxu gacanta saaray kii ingiriiska carabigii uu qoray bay ka saxday oo Soomaali ah oo af Carabi xilligaas yaqaanay oo grammarka yaqaan ilaa ma ogay cadani ku dhalatay gabadhu iskuulka kaga baxday iskuul primary ilaa middle school ayay cadan ku dhamaysay af Carabigu qorays ahda kii gaalka ah ay tiri war waxaan maxay tahay aan kula soo dharrag asagii madaxu gacanta saaray ilaa warqaday iswadaarsanayeen ayada qorays saas ay dhahay oo iyadu yeelay tiri waxaan aad u qortay nin yeelaya ma aha suldaan bedelo oo hadalka moderate garay hadalka qurxi midkan ingiriiska kibir iyo isla weyn British Empire ama dokumentidaas oo dhan maxamed lagu ku hayaa ku keenaa buuga markaa yaa qoray ee aad sheegay Langton Walsh meesha saaray oo ku xigeenkii ninkii Hunter bedelay Hunter ku xigeen u ahaa waan gartay Soomaali aad uma aqoon muddo yar oo 2 sano uu la joogay Hunter markuu inta soo galay shaqadii uga tawiiray hawsha wada adiga Hunter wuxuu ku laabtay cadan Langton Walsh la dhahaa waa nin hawdka kale halkan hawdka booliising sameynay yani duulaya hawdka dadkii ku bursanaya banaanka geel lagu kala dhacma halkan dekadu maxay ku socotaa xoolaha laga keena ilaa Soomaali meesha u dambeysay ayaa ilaa Beledweyne ilaa iyo dhagax ilaa iyo Beledweyne hiirana laga keenay halkan ay ka baxayeen qof kasta oo jirada oo Soomaali xanuunsadana halkan la keenay gaalka halkan kula hama mission oo dadku dawey ilaa waxa laga iimaanay boogga ku qoranta ilaa cabudo laga iimaanay ka warnay mudug iyo galguduud laga iimaanay inta la iimaanay caafimaadkana loo iimaanay marka wadadii la fariisto ma oo gaalka la diidan yahay amaankii wax maad suldaan Nuur Axmed Amaan iyo ciidankiisa yaa meesha fadhiyo wuu ku duulayay marka ciidamo uu kicinayay halkan waxa isku diray yiri boog ku qoran laba reer ay isku haysta magaaladan oo Saad Musa kamid ah oo leeyahay Ayaal Axmed iyo Ayaal Yunis waxa qoray boog ku qoran dokumentiga daba ku qoranta Hunter kuwiisan ku hayaaba gacanta ku qoray Hunter asaga oo leeyahay labada reer isku haysta marka meesha gal dhexdhexaadintoodan ku jirnaa Langton Walsh waa ku sii jiraa ayaal waxaan u maleynaa ama af Carabi ama Hindi asalkeeda erag ayaal waxa laga wadaa reer Axmed reer Yunis isku haysta waa ku dagaalamay magaalada Berbera waqtigaas taariikhdii ahayd marka 1884 marka heshiis baa waxa la isku raacsan yahay oo loo aqoonsan yahay Hunter inuu ahaa ninka British Somaliland ba u ah aabaheed dhismaha ninka dhisay asaasayba loo aqoonsan yahay ilbaaris ab laga qormaal dhow oo mid gaal qoray waxa la isku qadda la qoray sanadka hore waxa la isku raacnay laakiin dhowr 10 sano ka hor aqrin jirnay Hunter wixii British Library ka aqrin jirnay iyo Colonial Archive weligii uu arkay daytada Hunter marka Somaliland ba bilowdo inaad taariikhda diristo
dhinaca colonialka qofka ugu horreeya kusoo booda FM Hunter waa dhulkana wuu imaan jiray Hunter oo markuu cadan fadhiyay 1884 koona xataa Turkidu joogto iska imaan jiray dhulku mari jiray reborro qori jiray reborradaasoo ah asaga wuxuu iska dhigay nin dawladda Ingiriiska ka socdo meelaha maray laakiin waa Sardon may nin explorer ah saameeye dhulka saameeyay laakiin rebor wuxuu qorayaa juqraafiga dhulka demografiga inta ku nool cimiladu say tahay dhulku siduu yahay ayuu qorayay waqtigaas FM Hunter taas ku guuleystay inuu faham fiican u yeesho qaabka loo xukumayo Soomaali qabaa'ilku qoraxta Hunter jufooyinka sidii kala yihiin jilbiyada awoodaha ay kala leeyihiin dhaqaalahoodu wuxuu ku tirsan yahay siyaasiyan sidii ay kala yihiin waxa ay kala aaminsan yihiin muddo inta lag ma haystay inta diidan ayaga Ingiriiska iyo inta dhaqaalahoodu ku xiran Ingiriiska dad baa dekada dhaqaalahoodu ku xirnaa ma oo Ingiriiska ilaa cadan la macaamilayay Carabta Hindi la macaamilayay Zanzibar la macaamilayay shak waa arrin aad u dheer dhismaha gurigani waa cajiib si cajiib u eegay ilaa haddana uu taagan yahay gurigani inta badan loox baan u badan yahay bal wax ka dhan Ingiriis guriga haddaa qiimayso dhismaha banaanka architecture-ka waa Turki Arab Hindi wax la soo keenay gudaha haddaa soo gasho British waa jiifka iyo fadhiga iyo musqulaha iyo meelaha laga baxayo waxa yaab ah gurigan hadda afar albaab laga baxaya mujada afar albaab oo kala duwan baa qolkaas uu jiifan jiray asaga albaab laga baxo leeyahay hay haddii loogu soo galo albaabkan waa laga baxaya hadduu damco kaasoo ka sii baxaya haddii kale mid kale guduhu ka sii baxaya waa strategic waa inuu fakado waa maadaama meel hostel uu joogo oo gumaysi dal inuu haysto arrinta muujinayso asaga guduhu wax ka bedeleen ayaga gudaha ay dib u burburiyeen oo habeeyeen gudaha hagaajiyeen laakiin guriga Turkida uga tago waa laakiin guriga Turkida dhistay Turkida uga dhistay halkaas loo qabaarta oo aan soo marnaa laga soo galay oo qadada afar meel laga soo galaa laakiin halkaas qadada boog uu ku sheegay qoyska reer boqor u yimid oo ku martigeliyay habeen casho uu ku siiyay markabkoodana ubadda u taagan yahay 1884 boogana ku qoran halkaas aan qoraan ka garta hadda buugaas waxaan aqriyay ilig waxaan aqriyay 12 sano ka hor mar labaadna maraan ku laabtay markaan hadda soo maro waa darnaamay calaamadda uu bixisay description-ka uu bixiyay marka hadda meeshaan aan soo marnay meeshii cashada ku cuni jireen dining ahayd ما FM Hunter baa marka buugaa may Langton Walsh FM Hunter cadan bas uu ka qoray wuxuu qoray book aad u fiican oo experience-giisa iyo maamulkiisa cadan oo la yiraahdo cadan under British rule cadan oo ku hoos jirta xukun Ingiriis aad wuxuu uga warramay saddex qowmiyad cadan u badan kow Carab laba Soomaali saddex Yuhuud maxaa keenay Soomaalida aad u badan cadan deganay waqooyi ahayn u badnaayeen umada waqooyi deganaa iyo gashadii ayaa cadan tag jirta cadani berber isku dhawaa feeri Soomaali dadkii ugu horeeyay horta waxa lagu kala ilbaxay gacankii badaha sida loo kala galay Soomaali badow ee baadiye ku nool taariikhdeeda yani waa dhaxay badowna noqoto ugu marka qaramadeeda islaamku burburay oo Axmed Guri burburay oo baadiye u carartay magaalooyinkii waa ka yaacday ma la socotaa badow maadaama ay noqotay dadkii ugu hore ilbaxay oo xagga galay waa dadkii berbere iyo ka tagaday dadkii ugu horeeyay Soomaali u ilbaxay oo timirta u keenayay sokorta u keenayay bariiska u keenayay ilaa iyo gudaha lacagta ku kala bedelan lacag xoolaha la kala bedelanay lacag ma jirin xoolaha iyo adeegga lagu kala bedelanay marka timaado community-gu wada badeecadii xoolo ku bedelanaya tuura galay ilaa iyo hoos email dhulkan dhex dhan awaaray iyo dhagax buur isaas uga soco ganacsigu wuxuu war ilaa gobolada dhex soco ayuu ahaa berberada waxay waraabinaysay ilaa iyo buuhoodle ilaa iyo gudahaas ayadaa waraabinaysay ilaa iyo hoos hadda ninka la yiraahdo Swain oo mid kala ah isna oo Hindi laga soo diray oo Langton Walsh halkan ugu yimi Hunter ina la shaqeeyay laakiin aan toos mas'uul uga noqon walaalkiis ayaa wuxuu maamuli doonaa afartii howlgal ee sayidka lagu weeraray mid kamid ah Swain mid kala dhaxan EH Swain kan EW Swain la lahaa Swain wuxuu ku leeyahay dekedan berbera dekada ugu mustaqbal fiican bartamaha iyo geeska iyo bariga Afrika waxay waraabin doontaa mustaqbalka 150 sano ka hor leeyahay waxay waraabin doontaa ilaa iyo Congo aan uga faa'iideysan karnaa haddaan tareen saarno leeyahay halkaan aan uga dhigno Congo xataa dekad tareen aan saarno wax kastoo ka dego Congo ilaa caloosha Afrika ku jirta ma aan geyno leeyahay isweyna dhahay ayagu ma ogtahay feeri gumays meel walbo galo ujeedadu lahaa maxay wuxuu lahaa waxa la yiraahdo economic exploitation yani dhaqaaluhu rabay inuu cuno wax kale uma socon dhaqaalaha inuu dhaqaaligu ka arkay faa'iidada ay leedahay dhaqaalahu rabay meel walbo gala meeshuu ka faa'iiday marka oo uu dahab ka urursaday oo Ingiriiska dhan laga dhisay
oo lagu barwaaqoobo ingiriis oo adduunka dhan isku sii balaariyay waa markuu hindiga galadee xoolihii hindiga iyo khayraadka hindiga ingiriiska cunay halkan muxuu cunaa u yaala warqadda ugu horreysay ku soo diro governorka halkan jooga cox mida dhahan asalkiisa faransiis laakiin ingiriis muxuu ku soo qoran sayid adduunku fahamsanaa muxuu yidhi waddankan aad soo gasheen oo haysataan wax dhaqaalaha ood ka qaadaysaan ma jiro ood ka helaysaan sayidka dhahay 3 arrimood aa helaysaan uu yidhi qorax sand carro iyo anthill ingiriiska Soomaali waxay noqonayaan meeshaan ma aragtay bahasha candhuufta lagu sameeyo waxa la dhahaa oo weyn oo dheer bahashaan baadiyaha taalla meel walba marno dundumo saddexdaas le ka qaadaysaan uu dalkan san qorax cadcad ciid iyo dundumo wax kale ku helaysaan ma jiro ka bax dalka sayidku markuu gaalada warqad kula hadlaayo nin adduunka si kale ula hadlaayay Soomaali markuu la hadlaayna qaab kale diinta la ka saaray u dhahay laakiin ninkan diin inuu dadka saaray ma uu socdo waa ku soo dabagabanayeen kuwa diimaha inkastoo marka dambe laga munac Soomaaliya wala socota Soomaa dadka markuu kacay waa laga munaacay looma ogolaan dadka in la gaalaysiyo bilowga hore iyo inuu gaalku ku dhalamo ama la ogolaan iyo halka ku dhalaan diin in lagu dhaxfaafiyo waa la joojiyay 1901 meelaha ayaa la joojiyay wixii ka horreeyay waxa mission oo Faransiis iyo Belgium ah ku soo daba dhuuntay markuu 1884 Langton Wallace kana soo dejiyay halkan oo ogolaaday soo diidan waa la qasbay asaga warqada loo soo qoraxli ogolow warqada ku celi wuxuu dadkan dad aqbalaya ma ah in kristaan lagu dhaxfaafiyo meega dhaftaan buuqa igu abuurna hadda problemi igu abuuraya war ogolow waa lagu ogolaaday waa kuwii dega halkan sayidka meeshuu sii maray problemkaasaa jiray ma garan marka dhibaatadaas xoogga lahaa bilowga hore qaabkii bilowga hore loo sameeyey British Somaliland waa colonialka u sameeyey marka sayidku wuxuu ku leeyahay diinta la ka saara inta Soomaali si kale ula hadlaa gaalka laakiin aad u fahamsan yahay qadadiisa isoo ula hadlaayo warqadiisa hadda aqris waa farsamo kale economic structure-koodii wuxuu dhan waa fahamsan wixii Cameroon loo tagay waa ogyahay wixii wax dhan nin fahamsan oo ogyahay wuxuu leeyahay meeshaan economic exploitation kama qaadaysaan ha ku wareerina isaga bax dalka wuxuu ka faa'iiday Ingiriis in Berbera iyo Somaliland protectorate wuxuu ka faa'iiday inuu badan control rinsiga badan asaahistay xagan cadana naga soo jeeda ma hadda naga dheer cadan ma la soo cadan inoo muuqanaysa marka Berbera ma dheer hadii hadda aan bada galno oo dhaxda marayna waan u muuqataan nalkeedii waa galina boqol iyo meeqa jirta harta aad bay u koobantay waliba hadda waqti leerka cadan waa laga arkaa halkan waagaas si ay riboradooda ku qorayaan habeenkii doonta cadan ka soo baxda subax halkaan ay soo galayso hadda laakiin dawaa isaga dhawdaa saddex waliba doontaas oo ahayd doon aan casri ahayn doon la soo cufeenay ahayd oo Soomaali laga soo buuxinayo oo halkaan la soo istaajinay ahayd oo dad badan lagu soo rarayo xiriirka Berbera iyo cadan u dhaxeeya ayaa wuxuu ahaa wax massive oo caadi ahayn si joogtaan ku yiri saasay doomo socdeen cadan iyo halkaan dadka yacni dad soo quracanay soo cashaynay camal ay ahaayeen jaaliyad xoog lahana meesha jiifto degan waaba tan labaadan ku yiri oo carabta ku xigta waana laga aqoonsan marka hore moqoy ku bilaabeen moqo meel la yiraahdo dhinacaas naga xigto dhinaca halkaas saylac dhinaceeda ku toosnaanay taas moqo magaalada waa laga soo guuray 1839 ingiriiska markuu cadan qabsaday ayaa cadan la degay Soomaaliduna dajaaliyad xoog leh ayay deganayeen hadda rekoorka marka aqriyo ana weligii cadan ma tagin laakiin rekoorka marka aqriyo waa tagi doonaa aadan u tagi doonaa inaan tagaan u baahanahay Crater Mello ayaa dikadu ku taalay waa jirtaa dadka raadmeedka markaan wareysto waa yaqaanaan Crater Soomaali waxay kala u baahantaa Sheekh Cusmaan riboradooda dhan ku haya say isku khilaafaysay isay soo ahayeen dadka culama iimaanaysay buuqa dhacay marka qaar meesha Sheekh Cusmaan ah mar dhexe waxay samaysteen Somali Islamic Society oo Xaj Faarax Omar sameeyay 1920 jaaliyad weyn baa ka joogtay jaaliyad weyn aad joogtay sax hadraawi baa de joogay oo de ahayd iyagu 1970 1960 meelahaas ahayd markay iyagu joogeen soo yaaceen oo markii soo yaaci doonaan waa markii soo yaaci doonaan waa markii 67 buuqa dhacay moogtay 67 ayuu ka kacay cadan Ingiriiska Faransiiskana 77 ku ka kacay Djibouti 10 sano u dhaxaysano waa la isfiirsanay wala isku taagnaa asaga inta Faransiisku ka cishta wuxuu ka faa'iiday strategically inuu badan asaga control maraakiibtiisa hindi u socota kulli satellite-diisan intuu ku xirtay cadanna ugu xiran yihiin marinkana dhan maamulay meeshaan wadaniyadii looga kacay maahana ma ka kacay asaga soo moog waa iska sii joogi lahaa soo cadan u sii joogi cadan meequu sii joogi ilaa 67 fadhiyo waa la kicin waayay buuqa dhacay iyo dagaal cadan halkan waa kii 60kii ka tagay halkan 60kii haa ma shuculadii wadannimo shadantay waxaa Ibrahim Cigaal iyo 46 ay bilaabeen maxamed Ibrahim Cigaal abiis
ayaa bilaabay 1946 odayaal uu ku jiro ha warqaday qoreen Oxford ay taala kaydka waa ku soo qaada hadda markaan tago inaan ku soo sawiro waa ku keen waxay leeyihiin shanta Soomaaliya oo la mid ah rabnaa Haji Ibrahim cigaal dhahay yani Soomaali weyn ka kacdo Soomaali dareenka kacay ma celin kara marka dareen xoog la oo leeyahay shanta Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed marka saleenka ma istaagi karo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska uu qoray 59 markuu baarlamaanka South Africa la sharay khudbad caana oo buugaagta cilmiga siyaasadda Afrika lagu soo xigto yiri oo bog walba lagu daro Afrika laga qoray marka post colonial kala asaas garanay iyo late colonialism wuxuu leeyahay dabayl xorriyadeeda Afrika saaqday mana joojin karno wuxuu samirsiinayay Ingiriiska kuwan kale ayaga laba u qaybsanay Soomaaliya foreign office colonial office asaga prime minister ahaa kuwa wali sii raba in Afrika lagu sii jiro kuwaas uu samirsiinay laakiin hal mid la raba in la xuso oo aan rabnaa inaan ku darno marka la dhiibay dhulkan Howdy reserve area 48 1994 mala socota district commissionerada Ingiriiska ee jooga Awaare iyo Jigjiga iyo kii Hargeysa jooga iyo kii gudaha joogay kulli waa midoobeen ma dhiibeen dhulkan no weydii ha Soomaalida la saftaan amar laga soo siinayo London leey dhulkan fuuday Boobsiya ma yeelay amar diido booqay inay sameeyaan warqaday qoreen ambareen ah ay leeyihiin ma taqaanaa Soomaali ha ku daran Ethiopia ma balayaan isku diin ma isku dhaqan ma wax ay leeyihiin 48 konton warqadoodii aan xaq ku aqrinaa Soomaali